مشروع تاكلي oo ah mashruuc lagu ciisinayo hablaha iyo inamada aqoonta ee magaalada Burco ayaa si rasmi ah loo daafray. Mashruucan taakulay ayaa iska kaashadeen culimo diinta iyo dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Burco. Ugu horeyntii waxa ka warbixiyay mashruucan taakulay ee lagu ciisinayo aqoonta qaar ka mid ah dhalinyarada, culimo diinta, ururada bulshada iyo dadweynaha xilka iska saaray ciisinta aqoonta ku nool gudaha magaalada Burco. Waxana ka mid ah hadaladoodii sidatan taakulay waa mashruuc aanu ku taakuleynayno ama ku gacan qabanayno ama aynu ugu gargaarayno ama aynu maalinta ciidda farxadda dhalinyaradeena iyo caruurteenu ay maaragtay qabaan mid la mid ah aynu la qaybsanayno oo la dareemayno si ay ula dareemaan caruurta agoomaha ah ee aan waalidka lahayn olaha taakuleeye maaha markii ugu horeysay dhalinyartan iyo bahda warbaahinta iyo ururada iyo dhalinyarta aqoonyahanka iska kaashadaan waa dhalinyar gobolka Togdheer dhalinyartiisu caan waxay ku tahay gurmad kasta iyo xilli kasta oo la joogo inay maaragtay iskaashi sameeyaan dadka samafalka loo sameeyo wanaaga loo falayo waxa kamid ah dadka agoomaha ah ee ugu mudan nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay ana wakafilul yatiimi fil jannati hakada intu waxa weeyaan fartaas murdisada iyo fardhixadaas nabigu sidaa u tilmaamay ayaa wuxuu leeyahay aniga iyo ka kafaala qaata agoonka jannada sidaas aan ku noqonayn iyadna waxaan ugu mahad celinayaa dhalinyarada isxilkaantay ee ururada kala duwan sidoo kale waxaan mahad celinayaa culimada diinta ka qayb qaadatay sidoo kale waxaan mahad iyaguna iska leh dadweynaha nagala qayb qaatay waxaan idin leenahay meel kasta oo aad joogtaan aad ganacsadayaal tihiin iyo haddii aad tihiin dad Ilaahay wax siiyayba war haddii caruurtaada ciidsiisay caruuraha kale jaarkaaga iyo caruuraha agoomaha ciidsiya wax macnaa sameyn mayso inay caruurtaadu ciidaan ku farxaan iyagoo caruurtii jaarkaaga ay la malcaamada ahaayeen ee la jaarka ay tabaariisan yihiin hawshan maanta halkan runtii aan ku qaybinayno runtii isugu jiray bahda ganacsatada gobolka runtii adeeyin bacadlayaasha ay hadii ganacsatada kale runtii sida wanaagsan uga qayb qaatay iyo inaan muujino wixii walaaluhu runtii noo idmadeen qof walba maalkiisa ku bixiyay si niyada u baxsaday inaan anaguna cadeyno in wixii aanu si qurux badan iyo halkeedii iyo ciideedii inaan ku wareejinay oo maanteeduna hortiina ka muuqata boqolkii qoys la ballan qaadan aanu rajeynayna hadii Ilaahay ka dhigo si qurux badan maanta inay nooga dhamaato. Ugu dambeyntii mashruucan taakulay ayaa ah mashruuc lagu ciisinayo hablaha iyo nabada aqoonta ah ee magaalada Burco. Waxana mashruucan iska kaashaday culimo diinta magaalada Burco, dhalinyarada aqoonyahanka, ururada bulshada iyo sidoo kale dadweynaha magaalada Burco. Abdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, telefishinka caalamiga ee Burco.